sidee bay ku dhacday in dal 40 sano cunaqabatayn adag ku jiray inuu maanta jilbaha u laabo quwad ugu weyn adduunka? Mis weydiisay sababta Washington ay u qarinayso khasaaraha dhabta. Meeqa askari ayaa dhab ahaan looga dilay Mareykanka? Lacag intee leeg iyo ka gubatay dhaqaalahooda 40 maalmood gudahood? Maxay tahay sirta weyn ee ka dhacday badda iyo hawada oo aqalka sare ka gubanayo? Waxaan dhexgalaynaa xaqiiqda iyo dhabta uu qariyay Mareykanku iyo sida Iiraan u muujisay in iimaanka isku tashiga ay ka xoog badan yihiin hubka casriga. daawila dhamaadka si aad ogaato jawaabaha naxdinta leh ee laga qariyay caalamka. 40 sano oo isku tashiya. dagaalka ma aha mid bilowday 2026 ee waa natiijada 40 sano oo Iiraan lagu hayay go'doon. iyadoo dunidu u maleynaysa in cunaqabatayntu daciifisay Iiraan, Tehran waxay u isticmaashay cunaqabatayntu inay ku dhisato warshadaha hubka ee ugu casrisan gobolka. markii uu qarxay dagaalka, Mareykanku wuxuu filayay in Iiraan ay dhowr maalmood ku dumi doonto. laakiin waxay la kulmeen mucjiso, gantaalo iyo drones lagu sameeyay gudaha Iiraan oo burburiyay tiknoolajiyadii malaayiinka dollar lagu soo iibsaday. tani waa guusha isku tashiga oo ka adkaatay cunaqabataynta. saaxiib, haddii intaan la soo gaartay fadlan akoonka subscribe video like saar noona sii share galay mahadsanid. su'aasha dunida isweydiinayso waa meeqa askari ayaa Mareykanka looga dilay dagaalka? inkastoo wasaaradda difaaca ee Mareykanka Pentagon ay sheegayso tiro aad u yar, xogta dhabta ee ka timaada Iiraan iyo ilwareedyo madax badan ayaa sheegaysa in ka badan 500 oo askari. weerarada gantaalada ee lala beegsaday saldhigyada Bahrain iyo Kuwait waxay garaafteen nolosha boqolaal askari. markii gantaalada Iiraan ay ku dhaceen markabka, khasaaruhu wuxuu ahaa mid naxdin leh. Washington waxay qarinaysaa tirada rasmiga ah si aysan u dimin niyadda shacabkooda. laakiin Iiraan waxay xaqiijisay in Mareykanku guranayo naxashyo aan dhammaad lahayn. su'aasha kale ee dadka intooda badan isweydiinayaan ayaa ah imisa lacag ay ka gubatay Mareykanku? dagaalka ma ahan kaliya mid naf ah ee waa dhaqaale. Mareykanku lacag intee leeg ayuu ku waayay 40 maalmood gudahood? Mareykanku wuxuu waayay in ka badan 200 oo bilyan oo dollar. tani waa khasaaraha tooska ah ee qalabka iyo howlgallada. diyaarad kasta oo F-35 ah oo la soo rido Mareykanku waxay gubanaysay 100 milyan. Iiraan markii ay xirtay marinka Hormuz, saliiddu waxay dhaaftay $120. tani waxay dhaqaalaha Mareykanka ka lumisay balaayiin dollar oo dheeri ah maalin walba. Washington waxay ogaatay in dagaalka Iiraan uu yahay midkii ugu qaalisanaa ee abid ay gasho. maxay qarinaysaa Washington? maxay tahay sirta weyn ee ay qarinayso Washington? waxay qarinaysaa in nidaamka Patriot iyo THAAD ay ku fashilmeen inay qabtaan gantaalada Iiraan. haddii shacabka Mareykanka ay ogaadaan in dafaacoodu yahay shaandho, ma jiri doonto cid aaminta militarigooda. waxay qarinayaan inaysan awood u lahayn inay xoog ku furaan marinka Hormuz. Iiraan ayaa gacanta ku haysa masiirka dhaqaalaha adduunka. Washington waxay hadda hoos u bariyaysaa Tehran si looga heshiiyo xaaladda. 40 sano oo cunaqabatayna waxay dhashay qubad aan la jibin karin. Iiraan maanta ma ahan dalkii shalay ee waa awoodda bariga dhexe ee casharka u dhigay isbahaysiga Mareykanka iyo Israel. ma aaminsantahay in Mareykanku mar kale si fudud ku weerari doono Iiraan? noogu reeb fikirkaada qaybta falada. fadlan akoonka subscribe video like saar noona sii share galay mahadsanid.